السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين أبوان حرقو وحاندين وضا برنامج قارة oo ka turjumaya fisqiyaadka ka jira xeebta jasiira iyo xeebta liido halkaani waa xeebta jasiira waxa si maalinlaa ugu tunta gabdha iyo wiilal ajaanib ah oo iska soo raaca caasimadda magaalada Muqdisho si halkaasi ay ugu tuntaan jimcihii ayay ahayd muuqaalkaani waxa halkaas lagu soo bandhigay wax aan isha iyo qofka bili aadamka ama muslimka uusan qaban karin waa gabdha Soomaaliyeed oo guryahoodii kaga soo baxay xijaabo iyo indha shareero waxay soo raaceen wiilasha ajaanibta ah oo aan ka naxaynin sharaftooda iyo cisigooda waxay u soo raaceen meel cidlaa xeeb cidlaa cid joogtaan la garanaynin isla markiiba muuqaal ayay ka duubeen wiilashii oo kuwa halka ku niikinaya hadba mid saraxa saareys aaway dadnimadii ummadda Soomaaliyeed aaway culimada siyaasadda ka hadasha waxaan ognahay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho iyo xafladii Sheekh Umar laga joojiyay ee lagu dhigay stadium Gonis midii ka dhacday waa la ogaa iyo banaanbixi ka dhacay haddaba maxaa looga aamusan yahay sharafka gabdhaha Soomaaliyeed iyo carada Ilaahay oo maalintii 50 jeer ku soo dagata xeebaha waaweyn ee ku leenahay caasimadda magaalada Muqdisho sida xeebta Liida iyo xeebta Jasiira culimadu maxay uga aamuseen wacyigelintana maxaa loo siyaasadeeyay waa su'aal daaweyn oo aan rabo inaan weydiiyo dadka cuqalada ah oo aqliga u saaxiibka ah culimadu ayaa iska daba meeraysata dadkiina halkaas ayay ku halaagsameen naxariistii Ilaahay iyo waxyaabihii Ilaahay aan ka heli jirnay oo naxariis iyo gargaar intaba waxaan ku weynay fisqiyaadkaas ka jira xeebta Liida habeenkii 6 saac markii la gaaro iyo maalinta jimcaha fisqiga ka jira xeebtan Jasiiro oo aad u jeedaan in gabdhihii jirkoodii ay halkaasi ku soo bandhigayaan ayagoo kula tumanaya wiilal ajaaniba si maalinlaa muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro iga gaarsii cid kasta oo aqliga u saaxiibka ama cid kasta oo danaynaysa in ay wax ka qabato arrintaani waa walaalkiin Abwaan Xarago waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh